Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Jawda. Waxaan ahay wiil dhalinyaro ah oo ku nool wadanka Masar. Riyadaydu waa sida wiil kasta oo ku nool wadankaasi Masar. Waxaan jeclahay marun in aan guursado oo yeesho reer iskuna filaado. Waxaan aad u jeclahay caruurta yaryar. Maalin una waxaan rajeynayay inaan aabe noqdo. Waxaan la socdaa gabadh. Gabadhani waa gabadh aan aad isku jecelahay. Laakiin hal dhibaato ayaa jirto. Waxay aad u jeceshahay lacagta. Aniguna waxaan ka soo jeedaa reer dhaqaale ahaan aan aad u fiicnayn. Waxa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inay igula talisay in shirkad ka mid ah shirkadaha magaalada Qaahiro ay soo dejisay inay u baahan tahay shaqaale. Waxayna igu tiri waa in aad aadaa shirkadda. Waxaanan ku iri waayahay. Aniga oo dariiqa sii socda ayaa mar qura waxaan arkay gaari dabadayda si xooga u soo socda. Waxaanan ku miirsaday aniga oo dhakhtarka jooga. Markii aan soo miirsaday waxaan dareemayay xanuun aad u daran. Waanan qayliyay. Xanuunkii markii aan u adkeysan waayay waxay ii yimi dhakhtarkii wuxuuna i siiyay dawo xumad jabin ah oo irbada ayuu igu muday. Waxa dhacday in dhakhtarkiina ii sheegay in aan anigu galay shilkaasna aan ku waayay lugahaygii oo aanan dib u soconayn. Waan ooyay, waanan qayliyay. Aniga oo qaylinaya oo ooyaya ayaa waxaan arkay gabadh ilinka dhakhtarka taagan ina sida ubax. Waxa aan ku iri yaa doonaysaa maxaa tahay adiguna iga hor dhaqaaq. Waxay ku tiri aad iga raali ahow waayo aniga ayaa sababay in aad weydid lugahaaga oo gaarigii ku jiiray aniga ayuu ahaa ismana lahayn jiid iga raali ahow. Waan iska aamusay. Waxaanan bilaabay in aan reerkayagii waco iyo gabadhii ii doonanayd. Gabadhii ii doonanayd way soo oroday si ay ii soo eegto. Waxayna ahayd mid ooyeysa. Waxa dhacday in ay qalbiga aad ii xanuunayay ayada isla markiiba tagtay. Waa maalinkii iigu dambeeyay ee aan gabadha arko. Waxa dhacday in markii 2 saacadood sii maqnayd ay ii soo dirto waraaq iguna tiraahdo reerkaygii waxay igu khasbeen wiil kale ee nooli kulanteen. Waxaan ku rajaynayaa nolol wanaagsan. Waan sii murugooday. Xaaskay gabadhii aan jeclaa waa waayay. Shaqadii waa waayay. Lugahaygii waa waayay. Waxaan isiri ninkaagan faashilka ah yaa wax kugu falaya. Noloshii oo dhani way igu soo adkaatay. Gabadhii i jiiday waxay ahayd mid dhakhtarka ku soo noqnoqonaysa oo aan ka tegayn. Ugu dambeyn waxa la gaadhay markii gurigayagii la ii wareejin lahaa oo aan dhakhtarkii ka dhammaaday. Gurigiina waa la ii wareejiyay. Waxa aan khasab igu noqotay in aan la qabsado noloshan cusub. Gurigayaga waxaan ka baxay aniga oo luga leh. Waxaanan ku soo noqday aniga oo wheelchair ama gaarigan curyaaminta la igu jiidayo. Waan murugooday. Gabadhiisa waxay ahayd mid xitaa gurigayaga iigu imanaysa. Markii aan ku iri khalaas anigu waan ku cafiyay waxana qadar ayay ahayde. Waxba hays murugayn iskana joog. Waxay igu tiri maya qalbiga ayaa ii degaya marnaba haygu oran iska joog. Waxa dhacday in 2 bilood ka bacdi ii yimaado waraaq aan mar hore ka xareystay militariga si laygu daro oo laygu yiri soo bax militarigii ayaa ku aqbalaya. Laakiin ma military ayaan ka qayb gali karayaa. Lugahaygii waan waayay. Waraaqdii ama invitationkii oo iga yimi militariga waxa qaatay saaxiibkay. 2 bilood ka bacdi iyaduna waxa dhacday in meeshii uu ka dhacay qarax sababtay gaas uuna ku dhintay saaxiibkay iyo dhammaan kooxdii aan anigu markaa la tababaranayay. Taas macnaheeduna maxay tahay haddii aan luga lahaan lahaa maanta halka ayaan ku jiri lahaa. Waxa kale oo lay sheegay in gabadhii aan isjeclayn uu guursaday wiil aanu darisnahay. Maalin walbana tan iyo maalintii is guursadeen qayladooda socotay iyo dagaalkoodu. Waxaana la ogaaday in aanay gabadhani wax caruura dhalayn.
sidaa ayayna wiilka isku dilaan. Bal ka waran haddii aan guursan lahaa iyo caruur jacaylkaygii. Shirkaddii maalintii ugu horreysay aan u socday waxaa la sheegay in ay kacday albaabada inay isku laabtay. Iyadana halkaasina waa mid kale oo haddii aan maalintii shaqada heli lahaa maantana waxaa ii bilaaban lahayd murugo kale. Waxaa dhacday in maalin maalmaha ka mid ah ay timaado gabadhii iguna tiraahdo waxaan doonayaa in aan ku guursado ama de aynu isguursano ku guursado, yacni akhlaaq xumo bay noqonaysaa gabadh wax guursanaysa. Waxaa dhacday baan ku iri may isma guursanayno, waayo adigu waxaad ii guursanaysaa damiir xumadaada, yani waxaad isleedahay damiirkaaga ayaa ku dhibayo, waxaad isleedahay wiilkan caawi, laakiin anigu kuma guursanayo. Waxay igu tiri maya waan kaa helay, wallahi inaanan damiirkayga yacni aanu i cadibayn. Markii hore waa i cadibay laakiin haddeer waan kaa helay dhaqamadaada. Waxaanan ku iri anigu ma shaqaysan karaayo, maxaad ku falaysaa nin curyaan ah oo halkaa fadhiya. Waxay igu tiri shirkadda aabbahay ayaad ka shaqayn doontaa, keliya adigu waraaqo un ayaad qoraysaa, kombiyuutarkana waad isticmaalaysaa, shaqada lacagtaadana waad qaadanaysaa, fadlan i aqbal. Waxaan ku iri waan kasoo fikirayaa. Waxaa dhacday in aan reerkaygii la tashado. Reerkaygiina waxay igu yidhaahdeen fursaddu maalin ayay ku timaadaa, haddii aanad ka faa'iidaysanna noloshaada oo dhan waad qoomamaynaysaa. Waxaa dhacday in aan gabadhii isguursanay, waxaanan kula noolahay nolol tii ugu wanaagsanayd. Waxay ii dhashay caruur maasha allah. Qaybtayada lacag ahaan iyo maadi ahaanna aad ayay u fiican tahay, oo waxaan kaba mid ahay dadka uguba lacagta badan waddankaasi Masar. Halkaa ayay ku dhammaatay qisadeennii. Waan rajaynayaa inaad ka heshay. Channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fiidiyoyadana like saar. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.